Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idin lahaantiinba waxaan maanta idiin wadaa furaha guusha. Taabiciga Curwa ibnu Zubayr ayaa waxaa laga jaray lugta xanuun ku dhacay darteed. Isla maalintii laga jaray waxaa dhintay cunugiisa, kadib markii uu faras haraatiyey ama laaday hadba sida aad u taqaan. Waxaana uu yidhi, Allaahow adigaa mahadle. Waxaana uu yidhi, Ilaahow adiga ayaa mahad leh. Adiga ayaa jira, adiga ayaana xaggaaga loo soo noqonayaa. Waxaad i siisay wiil, waanaad iga qaaday. Waxaad i siisay 4 waxyaabood, waxaanaad iga qaaday mid. Waxaan kaa baryayaa inaad jannada nagu kulmiso. Maalin kale waxaa soo galay masjidka Curwa ibnu Zubayr, oday da' oo indho beelay. Waxaana lagu yidhi, Curwa, dhegayso odaygan warkiisa. Odayga ayaa ku yidhi, waxaan deganaa meel doox ah. Habeennimadii ayaa daad soo rogmaday. Wuu qaaday xoolahaygii iyo ubadkaygiiba. Waxa kaliya iga hadhayna wuxuu ahaa wiil iyo awr. Awrkii wuu iga baxsaday, wiilkiina bahal ayaa iga cunay. Taabicigii Curwa ibnu Zubayr ayaa ku yidhi, markaa maxaad tidhi? Markaas ayuu yidhi, waxaan idhi, waxa mahad leh Allaah, i siiyey qalbi iimaan ka buuxo, iyo carab mahadnaqaya. Allaah waa kuwa dadkii dhibaatooyinka adag ku sabray. Fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo dadka nagu xidhan.